Xabsiyadu waa kuwo loogu talagalay inay dib u hanuuniyaan dambiilayaasha, isla markaana bulshada ka ilaaliyaan kana fogeeyaan shakhsiyaadka khatarta ah. Waa goob xukunsanuhu ku qaato xukunkiisa, halka eedaysanuhu ku sugo cadaaladda. Hase ahaatee, xabsiyo badan oo ku yaala qaybo ka mid ah dunidan aan ku noolnahay waa kuwo ka hooseeya ujeedooyinkan aan soo sheegay, waxaana ay noqdaan meelaha ay ka jiraan silaca xad-dhaafka ah iyo dayaca daran ee ka dhanka ah maxaabiista. Muuqaalkan waxaan ku dul istaagi doonaa qaar ka mid ah xabsiyada ugu xun dunida, kuwa oo lagu yaqaano rabshado joogto ah iyo xadgudub ka dhan ah xuquuqda aadanaha. Haddaba waa kuwee 10 xabsi ee ugu xun caalamka? Nambarka 10aad waxaa ku jira xabsiga Mumbai Central, oo sidoo kale loo yaqaano Arthur Road Jail. Waa mid ka mid ah xabsiyada ugu da'da weyn dalka Hindiya, isla markaana uu ka jiro ciriiri aad u daran. Waxa uu caan ku yahay xaalad nololeed oo liidata iyo adeegyo tiro yar, taasoo sabab u ah in la geliyo kaalinta 10aad ee liiska xabsiyada ugu xun caalamka. Xabsigan ayaa markii hore loogu talagalay inuu qaado ku dhowaad 800 oo maxbuus, balse maanta waxaa ku jira in ka badan 2,000 oo maxbuus, taasoo keentay ciriiri aad u daran. Maxaabiistan waxaa inta badan lagu hayaa qolal yaryar oo aan hawo wanaagsan lahayn, taasoo abuurta xaalad nadaafadeed oo xun, sidoo kalena fududeysa faafitaanka cudurrada sida qaaxada iyo COVID-19. Cuntada iyo adeegyada nadaafaddu aad bay u yar yihiin. Warbixinno qaar ayaana tilmaamaya in maxaabiistu helaan biyo nadiif ah, laakiin cuntadu ay aad u yar tahay. Dhanka daryeelka caafimaadka, xabsigan waxaa ka howlgala tiro yar oo dhaqaatiir ah, waxaana ka jirta dawo-yari baahsan, waxaana maxaabiista qaar ay wajahaan xaalad halis ah marka ay xanuunsadaan, maadaama aan la heli karin daawo ku filan oo la siiyo. Xabsigan ayaa inta badan caan ku ah rabshado ka dhex dhaca gudaha xabsiga, waxaana rabshadahan oo ah kuwa ka dhex dhaca maxaabiista ay sababaan dhimasho iyo dhaawac ay isu geystaan qaar ka mid ah maxaabiista ku xiran xabsiga. Xaaladaha kale ee xabsigan ka jira waxaa ka mid ah musuqmaasuq xargaha goostay. Waardiyayaasha iyo shaqaalaha xabsiga waxaa badankooda ay qaataan laaluush si ay u fududeeyaan waxyaabaha sharci darrada ah gudaha xabsiga, ama ay maxaabiista qaar u siiyaan mudnaan gaar ah. Xaaladahan iyo kuwo kale oo ka sii adag ayaa ka dhigaya xabsiga Mumbai Central mid ka mid ah xabsiyada ugu xun caalamka, una baahan in dib u habeyn lagu sameeyo. Kaalinta 9aad waxaa ku jira xabsiga Mendoza Prison ee dalka Argentina. Waa mid ka mid ah xabsiyada ugu liita ee caalamka, waxaana ka jira xabsigan gudihiisa ciriiri xad-dhaaf ah. Qol loogu talagalay in 4 maxbuus lagu xiro ayaa lagu xiraa in ka badan 20 maxbuus, taasoo keenta ciriiri xad-dhaaf ah iyo isku dhac u dhexeeya maxaabiista oo sababa inay isu geystaan dhaawacyo daran. Sanadkii 2005, Guddiga Xuquuqda Aadanaha ee Inter-American ayaa iftiimiyay xaaladaha bini'aadantinimada ka baxsan ee xabsiga, iyagoo tilmaamay ciriiriga, nadaafad darrada iyo adeegyada caafimaad ee liita, kuwaas oo ah arrimo si toos ah xadgudub uga ah xuquuqda aasaasiga ah ee aadanaha. Warbixinno badan oo ku saabsan rabshado iyo ku xadgudub xuquuqda maxaabiista ah ayaa ah kuwa ugu badan ee xabsigan laga diiwaan geliyay. Waardiyayaasha badankood ma helaan tababar ku filan, taasoo keenta isku dhac joogto ah iyo dhibaateyn ka dhan ah maxaabiista. Warbixinno badan oo ku saabsan rabshado iyo ku xadgudub xuquuqda maxaabiista ayaa soo noqnoqda. Xaaladahan adag ayaana ka dhigay xabsiga Mendoza mid si weyn adduunka looga yaqaan, iyadoo ay tusaale u tahay caqabadaha culus ee ka jira nidaamka xabsiyada Argentina, kuwaas oo u baahan in dib u habeyn degdeg ah lagu sameeyo. Kaalinta 8aad waxaa ku jira xabsiga ADX Florence ee dalka Mareykanka. Waa mid ka mid ah xabsiyada ugu adag, ugu qaraar, uguna xun ee caalamka. Xabsigan waxaa lagu xiraa dadka loo haysto falalka argagixiso, waana mid ka mid ah xabsiyada aad loo adkeeyo ammaankooda. Qaabka dhismaha ee xabsigan wuxuu diiradda saarayaa in maxaabiista la go'doomiyo gebi ahaanba, lana yareeyo isdhexgalkooda. Maxaabiista xabsigan ku jira waa kuwo waqtigooda ku qaata qolal ciriiri ah, waana kuwo aan la tusin iftiinka qorraxda ilaa daloolo yaryar oo gidaarka xabsiga ku yaalla maahane, kuwa oo ay ka helaan iftiinka dabiiciga ah ee qorraxda. Waxaana maxaabiista xabsigan ku jira ay wajahaan dhibaatooyin xagga caafimaadka maskaxda ah. Sanadkii 2012, dacwad lagu soo oogay xabsigan ayaa lagu eedeeyay in dadka maxaabiista ah ay la nool yihiin xaalad caafimaad oo dhimirka ah, taasoo ka dhalatay go'doominta xad-dhaafka ah ee ka jirta xabsigan. Maxaabiis hore ayaa sheegtay in xabsigan ay ka jiraan xaalado aad u murugsan, waxaana maxaabiistu dareemaan welwel, cabsi iyo xaalad nafsi ah oo ay sabab u tahay go'doominta muddada dheer lagu hayay. Kaalinta 7aad waxaa ku jira xabsiga Bangkok Central, oo sidoo kale loo yaqaano Bangkok Hilton.
waa mid ka mid ah xabsiyada ugu adag dalka Thailand. Waa xabsi ammaankiisu aad u sarreeyo, waxaana lagu hayaa qaar ka mid ah dad loo haysto dembiyada ugu halista badan ee dalka, oo ay ku jiraan maxaabiis badan oo ku xukuman xukunka dilka. 3 bil ee ugu horreysa maxbuuska xabsigan, waxaa lugaha lagaga xiraa biro culus si looga fogaado in maxbuusku ka baxsado xabsiga. Maxaabiista halkan ku xiran badankoodu waa kuwo ku tiirsan ehelkooda, maadaama xabsigan aysan ka jirin cunto ku filan maxaabiista. Daryeelka caafimaadku aad buu u liitaa, iyadoo caabuqyo iyo cudurro aan la daaweyn ay caadi ka yihiin gudaha xabsigan. Bangwang wuxuu caan ku noqday markii Amnesty International ay soo bandhigtay xaaladaha bini'aadanimo ee ka jira xabsiga, gaar ahaan maxaabiista ku xukuman dilka oo la kulma cabsi joogto ah oo ku saabsan maalinta la fulin doono xukunka. Jawiga cadaadisku ku badan yahay, ciriiriga iyo dayacaaddu waxay xabsiga Bangwang ka dhigeen mid sumcad xun ku yeeshay caalamka, taasoo xoojisay kaalintiisa inuu ka mid noqdo xabsiyada ugu adag uguna xun dunida. Kaalinta 6aad waxaa ku jira xabsiga Butyrka ee Moscow, Russia. Xabsigan oo markii hore la dhisay qarnigii 17aad ayaa ah mid ka mid ah xabsiyada ugu da'da weyn ee dalka Russia, wuxuuna hoy u yahay maxaabiis aad uga badan intii loogu talagalay. Ciriiriga xad-dhaafka ahi wuxuu keenaa nadaafad xumo iyo faafitaanka cudurrada, gaar ahaan qaaxada, taasoo muddo dheer dhibaato ku ahayd Butyrka. Maxaabiista xabsigan ku jira waxaa kula nool xabsiga cayayaan iyo jiir fara badan, taasoo ka dhigaysa ku noolaanshaha gudaha xabsigan mid aan la xamili karin. Xabsigan ayaa indhaha caalamka soo jiitay sanadkii 2009 kadib markii uu ku geeriyooday nin qareen ahaa oo lagu magacaabi jiray Sergey Magnitsky intii uu ku jiray gudaha xabsigan. Warbixinnada joogtada ah ee rabshadaha, cudurrada iyo xaaladaha bini'aadanimo ee ka jira xabsigan waxay ka dhigeen Butyrka mid ka mid ah xabsiyada ugu caansan ee dunida, taasoo muujinaysa xaaladaha adag ee ka jira nidaamka xabsiyada Russia. Kaalinta 5aad waxaa ku jira xabsiga Kamiti Maximum Security oo ku yaala dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi. Waa mid ka mid ah xabsiyada ugu xun ee lagu tilmaamay inuu ka jiro musuqmaasuq xooggan, waxaana maxaabiista ku xiran xabsigan ay wajahaan nafaqo-darro aad u daran, maadaama raashinka keliya ee xabsigan laga helo uu yahay boorashka galleyda oo keliya. Cudurrada maqaarka iyo neef-mareenka ayaa si weyn ugu faafsan gudaha xabsigan. Maxaabiista ku xiran xabsiganna waa kuwo aan haysan daryeel caafimaad iyo cunto nafaqo leh. Xabsigan waxaa sidoo kale lagu eedeeyaa in waardiyeyaashu si xun ula dhaqmaan maxaabiista, wuxuuna indhaha caalamku qabteen xabsigan kadib markii dhowr kiis oo la xiriira dhibaatayn maxaabiis ay soo ifbaxeen. Xaaladahan culus waxay Kamiti ka dhigeen meel aad u adag in lagu xirnaado, waxayna tusaale u yihiin dhibaatooyinka waaweyn ee ka jira nidaamka xabsiyada dalka Kenya. Qaybta 2aad ee muuqaalkanna waxaa ku daawan doontaan xabsiyada kale ee ugu adag in lagu xirnaado ee ku yaalo caalamkan.